xalay goordad wada gam-ay xidigahoona daateen caasin diigulayacin ayaan hibaab soo baxay weli ka daanacay iga baxay dabkiisii weli ka daanacay iga baxay dabkiisii dabadeedana tagay wadanaana fulay dabadeedana tagay wadanaana fulay inshir da'weyn tahay diinida masaarle balanka abaaraysiin tuqubale xalay goordad wada gam-ay xidigahoona daateen caasin diigulayacin ayaan hibaab soo baxay weli ka daanacay iga baxay dabkiisii weli ka daanacay iga baxay dabkiisii dabadeedana tagay wadanaana fulay dabadeedana tagay wadanaana fulay inshir da'weyn tahay diinida masaarle balanka abaaraysiin tuqubale sukayshay wuxuu yidhi بعد بلطاني
وحنيني أحمد حبودي حلمي نجم فيها والدماء وكراه غني حاولنا ندور حلمي نجم فيها والدماء وكراه غني حاولنا ندور وحنين سيكي دروشي دموعي سمعتي مركحية اسكما إيمان الهوشري والفكرة أي لهي الدولة دائما ما أنت تشوفت الدولة فعلا في الصومالي وهرين مدحوينها يا برايم مستركة إلا حوشيو لطيايو لدردد قليو شغل الله بورنا ليرد لقونا بيريو حوق الدولة الصوماليات ماذا حوق الدولة الصومالية هي مانتا أدى كلية اللي قصوا يدل كان إنه فلاشة يحصلون جاره وإن حوق الدولة الصومالية أمنك السقاء أمنك السوق السقاء والحبة هي عافقات في سين الدريارة بيك عصب اللي قصوا فيريو لكن فكر كا وحايس قالها لولدها أن هذا الجردة العيدا كا هي الدريارة لو وجلوا وحوشة لا وحوي دليلادي loo ballan qaaday in shaqo la siinayo dad wadayeynta iyo horumarinta xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhiig cusub iyo saraakiil cusub lagu soo biiriyo marka taasna muxuu ahaa sidaas la soconaysaa waxaan kaloo muxuu ahaa xisaabta ku jirta isbeddelka guud iyo horumarka uu sameynayo ee lixaadda leh ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed intii u dambeysay 10 sano u dambeeyay ee burburka ka dambeeyay maalinba meel ku soo taagnaa maalinba marxalad baan soo gaarsiinayay saraakiisha sarsare ee hogaaminaysa ciidanka ee annaka naga horreysay ee 12 sano magaalada xamar ka saaray nimanka nabaddiidka saraakiisha hogaaminaysay kuwii ka madaxda ahaa kuwii ka dambeeyey ambalyadan waa idinla leeyihiin maxaa yeelay iyaga aasaas u ahaa inaanu meeshaan maanta joogno ku shirno iyadoo amni ah oo aanaan mataqaana wax dhibaataa laga baqaynin dad baa sacrifice soo sameeyey u soo dhibaatooday cadowga ka saaray iyaguna maanta xafladatan waa nala leeyihiin oo muxuu ahaa waxay ku leeyihiin in loo abaal celiyo la yidhaaho waa maatantii meeshaad soo gaarsiiseen ciidanka xoogga waxaan idinkula dardaarmi lahaa saraakiisha dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha iyo farsamayaqaanada caafimaadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan colalkiisa madaxa bannaan goboleedyada dhammaan ciidankani inuu gaaraan rabaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasta oo uu joogo maanta waxaan rabnaa inaan ka hadlo dhaqtar shaqaynaya muddadii hore dalkeenu waagii hore awoodda ciidankeenu aad u badnaado haweenaan dhakhaatiirtu xitaa intaan madamay waa ka yaraay maanta waxaanu ogaanay priority-ga u horeeya ee ciidamadeena dalku inay u baahan yihiin inay caafimaadkooda horta la sugo oo la baaro oo dhakhaatiir joogtaa ay helaan qorshaha waxaa noogu jira inaanu maamul goboleed walba kadibna caasimadaha ku xigay magaalooyinka waaweyn in laga sameeyo isbitaallo ay leeyihiin xoogga dalka Soomaaliyeed
waxaan idiin rajaynayaa guul waxaan idiin rajaynayaa horumar waxaan idinla qaybsanayaa farxadda muxuu ahaa waxaana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel kastuu jooga inta muuqaalka iyo halka joogtay inta dibadda jirtaba inay maanta ogaadaan in dhakhaatiirta intaa tirada leeg ay u soo socoto oo muxuu ahaa ay ka howlgeli doonto dhammaan xeryaha iyo colalka kala duwan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi. xalay goordad wada gam-ay xidigahoona daateen asin diig wayicin ayaan hibaad soo baxay